afarta dhig lama daaliye dulucdi koobaad leh suugaanta yoolkeedii iyo lama iloobaan leh afar kalena qaybihii dhaxoon kuugu sii daray leh adduunyada corona qabsaday goobayow badane dabadeedna ruushka colaad soo abaabulay ciidamada galbeedkuna hadday dhibi dhisayaan isku dhaarasha socota iyo boota iyo guuxe xabadaha nukleerka dhawaan la isku ridayay jabhadayna way furantihi yahuud ku gurilayne qaraxyada shabaabkuna cadaab gadasho raggu way isdilaatanisa waa maati ku habsaane khibradayda ceebbay ku tahay ficiladoodaas godadkay qodqodayeenna waa loogu soo dhacay xaggee bay galayaan tolow yaab la'ama kaagi aryahankoolo waxaa la yidhi hooy hooy shabaabow inaan harnayna moodaye hadde waa nakanoo hadde waa annagii war goboy oo magaajayleeraw barakasheen orsikasheen afarta gablinan isku kooyileeraw asiinhaaye oo dhegansada lankii walaalahood hadhow كنقد نيلي لكل دهوة هو بديجو واي لابسلاها لكل دهوة هو بديجو واي إيميل لكل دهوة هو بديجو واي واتساب لكل دهوة هو بديجو واي مسجر لنكويره هو بديجو واي فيسبوك لنكويره هو بديجو واي كوي هنغوي ملاه تاركي أمن دير لسكودافي يلا هنغه مداسا إذن يدغسه هاراو تدغل كوبوجيه irkiyoonay dhulku meel usga dab waayo warmadeeyow ali dheero niclaha aad sheegayso shalay laga wacay wuxuu yiri dadka Soomaaliyeed waa muslim iyagaana isdifaaci doona aryaadaha shabaab dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed inta xasuuqaan ali dheero murtadiinaan ever ka dhignaa falillaahi alxamdu dhihi jiriye saa wax ka naqdeen wartaa waxa ka daran shabaaban waligood jabkooda qiran hadda waxay sheegeen in ceel hareeri looga dilay 37 qof tirada dawladdu sheegtayna waxa ka cad inay boqol qariyeen وإنتاسba waxa ka daran oo ceel hareeri lagu arkay rag dad dhufaysiyaha ku jira oo lugaha isaga xiran 6 iyo 10 oo loogu talagalay inaysan kala dhuuman oo dagaalka ka baxsan jabka waan naqaanaa jaadku u yaale jahad beena sheegtay jeenyaha ma laga xiray war Axmed oo meesha geenya ma joogto waa la isku dilaa warfayeenka militariga General Caanood wuxuu yiri dadka lugaha laga xidhay waxay cadeynaysaa inay ahaayeen dad dagaalka lagu soo qasbay war guur qasab ah maqli jiray ma dagaal qasab ah ay keeneen war maanta ba hadii cali dheer leeyahay Soomaalidu waa dad muslimiina la ogaayo rag waaska dhicine hadda inaan itaal jirin arintuna ku adag tahay erayada la dhahayaa ogaal kuugu filan oo afkoodaad ka garataa aryaa ma waadan maqlinimaan warankaagu gelin warkaaguna ma galo oo hadda nimanka markii la xanuujiyay miyay ogaadeen Soomaalidu 100% inay muslim tahay war xoolaha ulima aroorisay oo na aroorshaa leeyir war Axmed oo ceelkiiba waa la duugay xagee xoolaha loo aroorinaya war amiin xalay waxaan ku riyooday amiirkii dhamaayay shabaab Abu Ubayda oo dhiiqa lagu hawgeliyo cali dheer iyo mahad karatay isagoo dhahaya waayahan walaalayaal oo ma xanuunsaneen ee waxaan ka caraysnay qaabka qaraxyada iyo dagaalka loo wado iyadoo ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ee walaalaha ah lagu gumaadayo hey abdukuus oo hilimi falaas miya inoo dambiil ka badbaadid kuusoo haday saas taayna waxaan ku riyoon lahaa markaas cali dheer oo dhahaya Axmed diiriye dadkeena qabyaalad buu ku leeynayay aniguna afayeenkiisaan hayo amarkan qaadanayay aryaadaha hadii warkiinu saas yahay waxaan ku riyoolahay mahad karatay oo le aadan ayro mugila dilaya awoodi shabaabna la kala wareega qaladkuna ma haasow ka bilowday war Abdullah kaba ku dukada xaqo u kuday aga wargooyin amiirada alaabtan oo laga soo aruuriyay meesha laga qabsaday dad tukada oo ma sanakayn war ceel hareeri markii meydadkooda la safay macawisleeya ciyaarku kor qabsatay waa sidaa rabne malagood ma galay yeerena hore waxa loo yiri malakul mootin masku leh makaankaaga ma mooga warwarka waa naga dhax gasheen dad badan oo Soomaaliyeed oo diiniyan uga xumaaday ciyaartaas waxay dhaheen meyd in lagu kor ciyaaro maahan waana ognahay in carab ka keentay dhalinyaradii falka samaysay hadii cali dheer inta muslimiin xasuuqo falilaahi alxamdu oo ka kor dhihi jiray yaa lagu daysanin in horay xad gudub u cadaystay waaye cadawgaaga hadaad jabisood ka gacan sareydana ilaahay yaa lagu xamdiyahay dhaheen warnimayo horta koox jabaysa hadaad aragtaan astaamaha lagu garto waxa kamida kooxa horay u jabay inay khibradahoodii adeegsato taariikh horena waxaan ku hayaa boqortooyooyinkii Faris iyo Ruum markii ugu dambeysay ay jabayeen ciidamadoodii inay 10 lugaha isaga xireen kadibna Khalid bin Walid ayagoo isku xirxiran oo aan carari karin uu madaxyada ka guray hadda al hareeri markaan arkay rag shabaab oo lugaha isaga xirxiran oo meeshii lagu laayay ayaan soo xasuustay qisadaas warnimayo yaa ka ayaan daran ninka inta colugu hor dabray ninkii dabray ka tagay warnimayo horta shabaab xagee dhaawacyada geeyaan warmeydkii baa fakaday oo intii kala la fayliyay miyaadan maqli jirin war xageed
isku artay shabaab lugaha ka go'an oo shilka ku boodaya weliga waa loo fududeeyaa miya war dhaawaajo roore aryadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi doliba mukulaal darteed dabshidan waa uu dardaryaa doliba mukulaal darteed dabshidan waa uu dardaryaa war cabdillow shabaab hadday danab arkaan ma geedahay dardaraan baa tiri war shabaab macawisley arkay fadhi uma yaal ani waa yaabiye macawisleyla sheegoo siine lama goodus dagaalka magalaay miyaa war abdallow aliindilay ama galaasa dagaalka war madeeyow taliya shubwaakii dhahayay nimankii xaggeenna loo soo wadaahe xaguu ku dambeeyey war ukumuu agteennay u yaalliinuu ku dhah war jimcihii shalay barnaamijyada idaacaduhu qabtaan ee siyaasadda lagu falanqeeyo ayaa laba ninoo doodaysay ku wada hadashay midaa wuxuu yidhi dowladdii hore waxaasay qabatay waxaasna way toosisay oo waxaasay hagaajisay marka dowladdan iyo tii hore yaa wax qabad badan oo saaxiibkiis weydiiyey kii kale isagoo isdhibina wuxuu ku jawaabay shabaab lay weydii war xaqiiqadu waxay tahay 5 bilood oo xasan joogay shabaab ma nasan war hayaay axmedow adiguna ma tareenkaad boos ka heshay horta anugu waxaan hubaa dowladdii hore inay dadaashay sababtoo ah 5 sano oo ay joogtay shabaab waa cayileen caloosha iyo cajiradaa weynaaday dagaal iyo orod iyo digdigna ma aysan gelin qaraxyo iyo wiilal yaryar uunbay soo diri jireen lacagtana waa iska aruursan jireen hadda markii xaaladdu adkaato oo orod la huri waayana nimankii cajirada waaweynaay waa isgooyeen warshabaab ma waxaa ku dhacday naftu doqoonsana damaca waalana waxay doonta beri ku diri ogaa dantukaadaga durba celin ogaaye war cunaqabatayna lagu soo rogo waxaa loo daaray dahabadan lahayn ku tira daldalo dahabadan lahayn ku tira daldalo war adin abdukuso waliba ku tabtay risiq eebba kuu diiday ka durugsana nimuu duunya siinaayo deeqii u dhowaa war madeewadna waxaad ka tagtay taa waxaa daliil ah xaadka samaada duuliyo diinkuba u siman calaaf ha ka dayrin weligaa noloshaad la daris tahay ha u doodin abidka mid kaloo ku dayashaa dhammaantiin waxaad ka tagteenoo shabaab iyo macawisley kale yihiin mar un laysma garabdego dad ma wada sinaan karo adduun waa isdabamaal warwar ma haysiine khudbaddii jimcaha masaajidada magaalada muqdisho inta badan waxaa looga hadlay khawaarijta iyo dhaqankooda foosha xun ummadda soomaaliyeedna waxay qadiibyadu ku boorriyeen cadowga inay iska celiyaan sababtoo ah khawaarijtu ninkay dilaan iyo ninkii dilaaba waa ahlu janno ilaahay rasuulkiisaana caddeeyey marka marnaba lagu khasaari maayay yidhaahdeen dagaalkooda wax looga cabsadaana meesha kuma jiraan hooy lama goodle ununkaer xamar weynaa nahay dahluuka ma rabno anunkana baxareynina shalay masaajidka uu weynga xamar weyn ku taale marwaas waxaa ku dugta sheekh masuur roblo waana khudbeeyi shabaab ala dilu ku lahaa indha adeegiisa usna markii saasas dhahi ununka wadna kurkuraana gali tawarteena ma aheene maxaskoorkasna uu geli ha ununka war taas waxaa ka daran markii khudbada masaajidka marwaas laga baxay nin jameecada ka mid ahaayoo tagay kawaanka malaayiga waxaa la weydiiyey khudbada maanta maxaa looga hadlay markaasuu wuxuu ku jawaabay ilaahay ha laga cabsadaa la yidhi markaas haddana waxaa la weydiiyey shabaabaa khudbada looga hadlaa la yidhi maxaa ka jiro kadibna wuxuu ku jawaabay aniga khudbada waa hurdoodii ee saaqaas ay gelinin masaajid suuqa xoolaha ku yaalla khudbaddii jimcaha waxaa looga hadlay isdaahirinta dumarka wargooyinaadi weydiiye masaajida bu'aala ku yaalla talow maxaa looga hadlay war masaajid cali gaduud waxaan u maleeyahaa in khudbadii jimcaha uu askari akhriyey kadibna uu uga hadlay qiimaha ay xornimadu leedahay war cabdikuusa war ma hayside masaajid cali guduud madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe iyo taliyaha xoogga dalka jenaraal odawaabaa ku tukaday waxaana ka khudbadeeyey madaxweyne guudlaawo cali gaduud degme ugu dhawaaqay war muqdisho war muku haytana dadkii yaaqshi degan dadkii ka hada deganaay
dadkii eesha deganaay dadkii daynile deganaay dadkii suuqa hoolaa deganaay oo dhudhuumada jiraan fadhi ku dirjo aadi aan amrideen suhurnimo waanan hadalaayeen walina iska dhaarsadeena onog bustoolo la gargara hoobaana dhahgala aynoo foganay war dadku muxuun qabatayntii warka iyo cabsidii bay iska qaadeen war Soomaali waxa ugu daran ninkii aamusiyo caburiya sababtoo ah war ku nool aryaadhaha ma waan hore loo dhihin dhibaata raagtaayoon dhammaan leesku dhiiraaday dhaasha dhibaata raagtaayoon dhammaan leesku dhiiraaday dhaasha war cabdullaw qarax dhiirade ayaa ka dhacay bariga gobolka mudug qaycad oo u dhow degmada bacadweyne wuxuuna si dhiiran ugu qarxay dhagarqabayaashii diyaarintiisa ku dhiiraday hadda gaari weyn oo sabaaxana waa ku rarnaayo gar iyo cimaamad waxaan ahayn waa laga waaya meeshii war waa cadaalad ilaahay cadowgii ku casuumay cibrigood ha go'e maxaa suuqii qarxii soobaal looga aaray qaraxa sooba'aar badana 100 qofood baa ku dhibatay baa la yidhi 150 shalay ceel hareeri looga dilay waraa ceel hareeri reer hiiraan iyo reer shabeellada dhaxaa ku aarsadee reer muqdisho waxay sameeyeen sheeg war hal dooro dalka ku dhisaan maqli jiray hadda reer muqdisho waxaa looga baahan yahay hal shabaab oo guri ku dhuumanaya soo sheego dadkaaga ugu aar oo markay soo sheegayaan may soo qabtaan war shabaab meeshu joogu ku xukuman yahay may dilaan at waxaan ku wadaha ilyaas ma laqdina war cabdallow nin reer xamara ayaa iyadoo bilka loo soo diraya ingiriiska laga soo wacay markaasaa la yidhi wadaageeyow xamarka waran maalmahaan wuxuu ku jawaabay khawaaf waa dhammaadi walaalkay war waxaa la yidhi kooxahan dadka laayo dhaqanka yeeshay dugaagga dalabkooda inaad degdegsiima adeecdo ama doolarka siiso arrintaa dulucdeedu deeqda eebba ku siiyey dilkuu iibsan miya war axmedo war maahay sida ganacsatadu taleefanadii way bedesheen baa la yidhi aaggiina way bedesheen baa la yidhi marka xaaladdu sidii hore maaha oo beesadu iska dhiib way noqon weyday doqon aan damqanaynoo damiirkii ka idlaaday iyo dulli deeqda ka qaata miya doodu mare warnimayo anigu waa yaabaye wariyaashii galmudug asbuucyadan oo dhan waxay tirinayaan meydadka shabaabkii looga dilay hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo wiil iyo gabar tigtog isku furay marka waxaan isweydiiyey aaway galmudug abaabulkii iyo dagaalkii laga rabay war hankoorow galmudug madaxweyne axmed cabdi kaariyo qoorqoora madaxweyne ka ah war CBB waxay dhaheen abwaanguura walba guriga hooyooyinka haystee tiyaatarkiiba hadda loogu daray war intii farmaajiroogi ma in sheegu waayeen war ma haysiin ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ciyaartooy kubadda cagta qatar ku ah u noqday war kooxdee u ciyaara war fahad wuxuu yiri waligay anigu banooni ma ciyaarin war rooble waxaa la arkay Sweden asagoo banooni ku ciyaaraya oo hadda rooble kooxaha Yurub ka ciyaara miyuu mid ku biiri rabaa war xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur Arsenal buu taageeraa rooblena Arsenal ka biiray warka waad la waalateene waxaa faar weyn lagu soo qabtay rooble oo kubadda u gambinaya mid kooxdiisa ka tirsan kadib comment waxa lagu soo qoray rooble si camal ah kooxdaadii ma u gambinay mid kale wuxuu yiri waligiis oo sidaan ahaayo farmaajadii fahdo uu soo gambiyay oo hadda rooble ma waligii buu gambin jiray kooxdiisa war dhag hadal aan maqli jiray ama inda hadal ahayd heesaan idin yeelay camal war ma heesaan hadad nabadii nololka maqli jirteen Itoobiya waxay diidan tahay nabad sugidda ma salaad loo magacaabay sababtoo ah Masar wax ku soo bartay ayaduna xiriir la leeyahay deeni raad ma leh warkaas ay cunay miya war ma qadar buu aaday warka ku soo boodinina Muqdisho waxa heshiis ku saacday qanisyada sirdoonka Itoobiya iyo Soomaaliya war hangoolow ma taqaanide midna nisba la yiraahdaa midna nisa deetuna waa nisa allo may magac may waayeen Cabdalla Sirdoon waayahay oo hadda ma salaad ma Itoobiya heshiis la saxiixday war ma haysina waxa ka dhacday baraadarku ma ahayn war iyagaan fahmine dawladay la macaamisha shakhsiyaadka isbedelayana muhiim ma aha war taliyayaasha nabad sugidda Soomaaliya iyo Itoobiya waliba kaaliyeen abniga noo iska kaaladan macala abniga Itoobiya lamada masaarad moorada meelay ku feedantii noo iska oodo ka heliya ka eriniyow war Itoobiya daris baan nahay Allahna naga dhigay annagu ma aanan dooran inaan wada macaamilo nabad ku wada noolaanaana dan inoogu jirtaa hadda ma salaad Itoobiya iyo Masar danta qarankan ku wada ma u yiri war macal qadar uu ku wada war Soomaaliya heshiis oo dunida heshiis la ahmiyaadan maqal war adigu ma heshiisaan marka war idinko heshiis markaas aan ka heshiiheynaa shabaab la heshiis karaa war dalka u shaqeey